السلام عليكم. halkan waxaa idinkugu soo gudbinayaa ummad ku nooleed dalalka Scandinavian-ka loo yaqaano waxayna noolaayeen qarnigii la soo dhaafay waxaana la oran jiray Vikings. ku soo dhawaada muuqaalkan. Vikings-ka waa dad halyeeye ah oo aan jaxin qoran oo ku noolaayeen dalalka loo yaqaan Scandinavian-ka waxayna dadku sameyn jireen qofka marka ay dilaan waa jarjari jireen naxariis ma aysan lahayn. Yurub iyo Aasiya waxaa loo yaqaanay magac la yiraahdo Vikings. waxayna soo baxeen 8 Juun 793 waxayna dabar go'een 1066 miilaadiga. waxayna iskugu jireen dadkooda dalal badan oo ay ka mid yihiin Iceland, Norway iyo Denmark. waxayna ahaayeen dad geesiyaal ah aan jaxin qorin. wadamada dariskoodana waxay ahaayeen kuwa ka cabsada. waxay Vikings isticmaali jireen malabka waxa la cabo oo sharaab ah kaalinta koowaad ayuu ugu jiray. waxayna ahaayeen dad ummadda kale ka duwan waxayna ku dagaalami jireen iyagoo feer qaawan. waxayna ahaayeen dad mar walba caafimaadkooda ku dadaala waxayna cuni jireen waxyaabo u gaar ah. mana jirin waagaas ciidan loo babacdhigi karo iyaga. dagaalkii ugu weynaa ay Vikings galeen wuxuu ahaa dagaalkii ay ku galeen buundada Stamford oo ku jabiyay Ingiriiska. sidoo kale taariikhaha waxay sheegeen boqortooyooyinkii Andalus ka dhisnaa ee muslimiinta ahaa in ay weerareen Vikings waxayna ahaayeen dawladaha waagaas ugu horumarsanaa muslimiinta. sanadkii 844 miilaadiga ay 80 doomood iyo 16,000 oo dagaalyahan oo Vikings soo weerareen xeebaha Andalus waxayna qabsadeen magaalada lagu magacaabo Isbiiliya. xilligaas muslimiinta Andalus waxaa boqor u ahaa boqor lagu magacaabo Abdurrahmaan al-Awsat. boqorkii Vikings wuxuu soo diray ciidan. Vikings-kana way ka adkaadeen ciidankii wayna jabiyeen muslimiintii. Vikings marka ay dagaal qaadayaan haddii ay arkaan qof tabar yar waxay aga tagi jireen duurka. qofka ay duurka aga tagaan haddii uu ku soo badbaado waxay aqoon jireen inuu gees yahay waxaana la geey jiray dagaalada afka hore. lacalla qof haddii duurka aga tagaan uu bahal cuno ma aysan u sii istaagi jirin waxayna caan ku ahaayeen dabka ay habeenkii shidan jireen. Vikings waxay ahaayeen ummad ilbaxnimo iyo xadaarad gooni leh. Vikings waxay indhaha marsan jireen indha kuul iyo waxyaalo kale madmadow ah si ay falaaraha qoraxda aysan u dhibin. sidoo kale waxay isticmaali jireen tattoo ama shabada oo ay jirka ay marsan jireen. sidoo kale timahooda waxa ay marin jireen daawo ka hortagayso in ay jirka gasho. dagaalyahanada ugu khatarsan ee Vikings waagaas jir waxaa loo aqoon jiray ee afka hore ee dagaalka la geen jiray Amberber Circles. macnaha Amberber waxaa loo aqoon jiray kuwii xirna maqaarkii duurjoogta. waxayna badanaa isticmaali jireen Vikings maqaarka yeyda iyo xayawaanaadka duurjoogta ah. diinta Vikings waxay ahayd diin sanam caabud ah waxayna caabudi jireen ilaahyooyin badan ay u kala aqoon jireen magacyo fara badan. Vikings magacoodu waa la waayay waxaana sababtaas keentay dulaana ay galeen waana lagu jabiyay waxayna qaateen diinta Kirishtaanka. arrinkaas kadib waxay galeen dhul raadis waxayna aadeen Ameerika. calaamadaha iyo qaababka lagu yaqaano Vikings waxaa ka mid ah marka ay dagaalada galayaan waxay isu ekaysiin jireen xayawaanada duurjoogta ah waxayna ahaayeen ummad ka duwan ummadaha reer Yurub. halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii aan uga hadlaynay Vikings. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.